jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Norway hay'adda Rahma Islamic Foundation ayaa si wada jira raashinka noocyadiisa kala duwan ugu kaalmeeyay 100 qoys oo dadka abaaru caydhayeen oo ku dhaqan degmada Dhanaano ee waqooyiga gobolka Saraar waxaana uu qaybisay bulshadii loo soo qoondeeyay raashinka gargaarka hay'adda maxalliga Munadamatu Nuur al-Hayaa al-Khayriya taasoo ay wakiisheen jaaliyada Soomaalida Norway iyo mu'assasada Rahma waxaana goobta ka hadlay xubnaha ay kamid ahaayeen Yaxye Saciid Ibrahim Sheekh Muuse Sahal Diiriye iyo gudoomiyaha degmada Dhanaano sidoo kale qaar kamid ah dadka raashinka gargaarka la gaarsiiyay ayaa u mahad celiyay Rabbigeena Raxmaanka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay raashinka la gaarsiiyay bulshadaasi halkan waa degmada Dhanaano annaga ah Munadamatu Nuur al-Hayaa al-Khayriya waxa halkan soo gaarsiinay deeq raashin ah soo dhiibeen jaaliyada Soomaaliyeed ee Norway iyagoo la kaashanaya mu'assasada Rahma Islamic Fund deeq raashin ah oo gaaraysa 100 qoys waxay ka kooban tahay 5 item waxaan markasta u taaganahay inaanu meel kasta oo dhibaataysan aanu gaarsiino iyo wax kasta oo dadka bulshada wax u taraya sida amalada khayriga ah ee qodista iyo masaajid dhisida waxaan u mahadnaqayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee Norway oo soo bixisay deeqdan raashinka ah ee kaashanaysa hay'adda Rahma Islamic Foundation oo markaa u soo gudbisay hay'addan Nuur al-Hayaa ee burco maqarkeedu yahay waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala raashinka ay dadka ugu soo tabaruceen Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka u saaro ilaahayna wax khayr qaba subhanahu wa ta'ala ha ugu bedelo maalinta qiyaamaha loo baahan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka u saaro waanu ka gudoonay deegaanka Dhanaano ayaan maanta soo gaarsiinay wuxuu ahaa 100 qoys raashinkood oo ka kooban 5 item sida bariis daqiiq sonkor timir iyo saliid buuxa ducayo u diraya hay'adaha islaamiga ee khayriga 24 saac gudahood ku soo gaarsiiya waxa sida tooska u soo gaarsiiyo ummadda nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri arraahimuna yarhamuhumur rahmaan maamulada gobolada la hadlaya iyo dhammaan wixii gudaabareed iyo arintaas ku shaqaleeyahay inay ummadda hoos u eegaan badan baanu la hadalay dadka warka laga soo gudbiyo sida la doonayo ugu jawaabaan boorta Ilaahay baan mahadinaynaa waxaan hambalyo uga diraya iyo ducaba dadka Soomaaliyeed jooga Norway kuwaas oo walaalahooda dhibaataysan ee abaartu waxyeelaysay u soo diray raashinka kan halkan aanu ku qaybinay maanta iyagoo kaashanaya hay'adda la yiraahdo Rahma Islamic Foundation dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta ama Soomaaliland ka taagani dadku waa in practically u arkay iyo in ka arkay muxuu ahaa TV-ga anigoo faru shiraac wada uga mahad celinaya Ilaahayna abuuray waxaan ka mahad celinayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee joogta Norway ee noo keentay raashinka ومحد بانو نقينا إلهنا محد بانو نقينا حتى رماشي أيام تمنى عضوكم نجا بح waxaa jira boqolaal qoys oo kale oo ka tirsan dadka deegaanka Dhanaano iyo deegaanada hoos yimaado ay ka dhamaadeen xoolihii isla mar ahaantaana u baahan gargaar degdeg ah Alibaar Maxamed Boos TV caalamiga Universal deegaanka Dhanaano